تصبح كرة. Soomaaliya waa dal Islaam ah oo Carbeed oo ku yaala bariga Afrika, gaar ahaan gobolka loo yaqaano Geeska Afrika. Qaabka khariidada Soomaaliya waxa uu u eg yahay lambarka 7. Afka looga hadlo dalkeena waa af Soomaali. Lacagta laga isticmaalo dalka waa shilin Soomaali. Magaalada madaxda dalku waa Muqdisho. Dhanka bariga waxa Soomaaliya ka xiga badweynta Hindiya. Dhanka waqooyina waxa ka kulaala gacanka cadmeed. Koonfur galbeed waxa ka xiga dalkeena Kenya. Galbeedka waxa kala daris ah dalka Ethiopia. Dalka Djibouti isna waxa uu ka xiga waqooyi galbeed. Ethiopia waa dalka soohdinta ugu dheer la wadaaga Soomaaliya, halka Djibouti ay tahay dalka soohdinta ugu yar aan la wadaagno. Dalkeena Soomaaliya waxa uu dhacaa bartamaha caalamka, waana goob muhiim gaar ah leh, taasi oo u fududeysay inay Soomaaliya xiriir la yeelato wadamada caalamka. Sidoo kale gacanka cadmeed ee la dariska ah Soomaaliya waxa uu maranbiyood muhiim ah u yahay dhammaan qaaradaha dunida ku yaala, isaga oo isku xira gaadiidka ganacsiga ee u kala goosha wadamada bariga iyo galbeedka dunida aynu ku noolnahay. Waana tan sababtay in uu gumaystuhu u soo kala tartamo Soomaaliya. Dadka dhulka ee Soomaaliya waxa uu ku fadhiyaa 638,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran. Dalkeena Soomaaliya waxa uu leeyahay xeebta Afrika ugu dheer, taasi oo dhererkeedu yahay 3,200 oo kiiloomitir. Dalkeenu waxa uu ka kooban yahay 18 gobol oo dhammaantood khayraad badan eebbe ku manaystay. Magacyada gobolada iyo magaalo madaxyadoodu waxa ay kala yihiin: gobolka Bari oo magaalo madaxdiisu tahay Boosaaso, gobolka Nugaal oo magaalo madaxdiisu tahay Garowe, gobolka Mudug Gaalkacyo, gobolka Sanaag Ceerigaabo, gobolka Sool Laascaanood, gobolka Togdheer Burco, gobolka Waqooyi Galbeed Hargeysa, gobolka Awdal Boorame, gobolka Galgaduud Boosamareeb, gobolka Hiiraan Beledweyne, gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar, gobolka Shabeellada Hoose Marka, gobolka Banaadir Muqdisho, gobolka Jubbada Dhexe Bu'aale, gobolka Jubbada Hoose Kismaayo, gobolka Gedo Garbaharey, gobolka Baay Baydhabo, iyo gobolka Bakool oo magaalo madaxdiisu tahay Xudur.